runtii wasaaradda waxbarashada waxay juhdi iyo dadaal dheeri ugu jirtaa sidii arday kasta oo wadanka Soomaaliland ku nool gaar ahaan gobolka Awdal uu u heli lahaa fursad waxbarasho. Wiigii u dambeeyay waxaanu ka shaqeynanay sidii iskuuladii runtii sababo kala duwan awgood iskuula nooga xirmay oo ilaa 4 dugsi ahaa sidii dib loogu furo lahaa. ilaa iyo hadda waxaan ku guuleysanay 4 dugsi oo ku kala yaala degmooyinka Baki, Boorama iyo Dila in dib loo furo. dugsiyada waxa kamid ah dugsigan hadda aan joogno ee Hartagele, kuwaan hore u soo marnay oo dugsiyada ay kamid ka yihiin Ruqi oo isna Baki ku yaala, dugsiga Carrawareen oo isna Baki ku yaala, iyo dugsiga Afraaga oo isna Boorama ku yaala. 4 dugsi oo runtii tiro arday oo aad u tiro badan ay ku jirtay oo muddooyin kala duwan xidhnaa. tusaale ahaan Ruqi oo kale bishii ugu dambeysay oo teeramkii dambe ah ayuu naga xirmay ama dib u furmi waayay, laakiin dadaal ay runtii guddida waxbarashada, guddida bulshada iyo wasaaradda waxbarashadu ay geliyeen awgeed ayuu dib ugu furmay. Hartagele sidoo kale oo xaqiiqatan aan la hilmaami karin doorkoodii ay qaateen guddida waxbarashada ee heer degmo, degmada Baki, degmada Dila iyo degmada Boorama. 3 degmo heer yani guddida waxbarashada ee heer degmo. waxa kale oo la mid ah guddida waxbarashada ee heer dugsi oo iyaguna xaqiiqatan juhdi saa'id geliyay. waxaanu ka faa'iideysanay oo nagala qayb qaatay hawsha macallimiintii shaqo qaran oo iyaguna xaqiiqatan aan doorkooda la hilmaami karin. sidaa daraadeed wasaaradda waxbarashada iyadoo isu duuban waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay ugu dhiirigelin lahayd ardayda iyo waalidiinta si arday kastaaba oo xaqiisii waxbarasho uu heli lahaa. waana naga go'an tahay dadaalkana halkaas aanu ka sii wadanaa.